waxaan ka mahad celinaynaa kulankan sharafta leh oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay soo abaabushay iyo saaxiibada. waxaan aad u hambaliyaynaynaa insha Allah wixii meeshaan ka qabsoomay oo wanaag ah. waxaan rajaynaynaa ka hirshabeelle ahaan in wax fiican la qabtay. waxaan mataqaanaa ka mahad celinaynaa abaabulkan iyo dowladda federaalka shaqada hayso iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiir fiqi oo hogaaminayo. wasiir waxaan leenahay waa mahadsan tahay. Soomaaliya waxay u baahan tahay cid isku keentay iyo cid isku hayso. ka dowlad goboleed ahaan annaga wax dhaliil lama qabno hogaamintaada. waa ka hambaliyaynaynaa ka maamul ahaanna waxaan rajaynaynaa in maamulka magacaaban inaan bedeli doono waqti dhow oo maayar la doorto aan keeni doono. hadda waxaan mashquul ku nahay dib u xirayntii iyo deegaanadii iyo saaka warqabtaba shaqadii dowladda federaalka aan ku ballansanayno macawisleyda. marka laba shaqo iskuma qaban karnaa. taasaan soo gabagabaynaynaa. taas markaan gabagabaynana waxaan bilaabi doonaa maayaradii doorashadoodii iyo dowladihii hoose. ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Hirshabeelle waxay ka shaqeysaa dowladaha hoose iyo degmooyinka Hirshabeelle dhowr iyo 10 degmo. hal degmo ayaa doorashada laga qabtay ilaa 5 degmona hadda process ku jirta oo qaarkood awood qaybsiga soo gaareen sida magaalada Jowhar oo kale. kulanka xiga waxaan rajaynaynaa maayar ilaa 5 6 7 gaarayo oo la soo doortay inaan goobtan keenno. hadda waxaan leeyahay waa maayar badan oo la soo doortay iyo sida Galmudug iyo insha Allah waxaan leeyahay khayr aan rajaynaynaa markaas. laakiin waxaan rabnaa marka aan ka dhamaano alqaacidada iyo qawaaridka waxaan rajaynaynaa meel la isku dooran karo nabad aan helno inaan doorasho qabanno. waxaan ka mahad celinayaa kulanka 3 maalmood iyo wixii la isku dhaafsaday iyo sida wax u dhaceen oo ka hambaliyayna. annaga ka farsameeyay ahaan ragga noo joogay waa soo gudbiyaan wixii aan qabanay iyo wixii noo qabsoomay iyo xaaladaheena. qaasatan maayarka beledweyne wuxuu ku sugan yahay xaalad aan laga sheekay karin deegaankaas. macluumaad badan oo hadda oo horumar lagama sheekay karo laakiin wixii dhacay masiiba in la sharaxay qiyaasa. wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo bandhigtay 3 maalmood wixii ka jiray Hirshabeelle fatahaadda iyo horumarada iyo wixii qabsoomay. saaxiibada meeshaan fadhiyo oo shirkan qaybta ka qaatay oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka taageeraya iyo wasaaradaha dowladaha xubnaha ka ah waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.